xildhibaanada baarlamaanka aqalka sare iyo golaha shacabkaba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bacda salaan ramadaan mubaarak. intii baydhabo hore u joogtay na waa salaaman yihiin. intii ku soo baxday arrintaana soo dhowaada, baydhabo ku soo dhowaada, gurigiina ku soo dhowaada. runtii sharaf iyo karaamay ii tahay inaad noogu soo noqotaan wada tashi arrimaha jiro doorashooyinka iyo caqabadaha yimid loogu qaas yeelay ama loo gooni yeelay koonfur galbeed darteeda aa u soo noqoteen oo aad noogu timaadeen wada tashi iyo talo. waa ku mahadsantihiin. marka ugu horeyso haddaan warbixin guud inka siiyo siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka iyo meesha ay wax marayaan. waa og tihiin doorashadan wakti badan iyo soo qaadatay. waktigii loogu talagalayna ma qabsoomin. waxa ay la qabsoomi weysayna waxay ahayd isqabqabsi iyo duruufihii la soo maray muddo 2 sano ahayna soo jiitamaysay. 2daas sano oo ay doorashada soo jiitamaysay oo maalin walbaba geed la tagaayey oo meel la fariisanayey, annaga haddaan nahay reer koonfur galbeed caqabadahana qayb kamaan ahayn. waxaan qayb ka ahayn dadka ka shaqaynayo dowladnimada Soomaaliya, midnimada Soomaaliya, wadajirka Soomaaliya, iyo in dalka uu waqtigii loogu talagalay ay doorasho ka dhacdo yaan hormuud u ahayn. hal maalinna mana aana cabanin, caqabadna maana keenin, balse waxaan diyaar u ahayn oon u taagnayn kuwa cabanayo ama konsaynka qabo wax sheeganayo in la xalliyo. mar allaalihii markii doorashada lagu soo heshiiyo oo doorashaha la qabto la yidhaaho, isteydyada qaara dhahaya ma qabanayno, qayb kama noqonayno, waxbaan qabnaa. annaga oo diyaar ah oo wax culaysana haysanin oo awoodi karna inaan doorashada qabanno yaan joojinaynoon lahayn ma qabanayno. sababta maxay tahay? doorashada iyo dowladnimada Soomaaliya ma rabna in cid gooni ah lagu faquuqo. waxaan waa consens, waa wada ogol in maxay ahayde ayadoo uu qof Soomaali maqan yahay aan soconnana ma aqbalayno. waxaan u lahayn waxaa waaye midnimada Soomaaliya yaan ilaalinaynay, sharafta Soomaaliyaan ilaalinaynay, wadajirka Soomaaliyeedaan dhowraynay. sidaas darteed yay doorashada waqtigan ku soo gaartay in qof kasta oo Soomaali ah lagu qanciyo. ugu dambeyntii waxaa ilaahay qadaray inay doorashadii bilaabato, ayadoo raalli laga wada yahay wada bilaabato, isteydyada ka bilaabato, heshiisyadii iyo habraacyadiina lasoo dhammaystiro, laguna heshiiyo shaqadii inay socoto. hormuud baan ka ahayn, shaqadii baan bilownay, si fiican ay noogu socotay. hal doorasho yaa Soomaaliya oo dhan ka dhacday oo isku habraac ah oo isku mid ah oo doorasho dadban la yidhaaho. markii la fiiriyo sida ay doorashada u dhacday, annaga waxaan ahayn dadka sida rasmiga ah adinkana waa joogtaan, Soomaalina waa joogtay, u maray habraacyadii loogu talagalay doorashada oo toos aanan waxba ka bedelin. waxaa dhacay qorsho siyaasadeed oo cad oo loogu talagalay in koonfur galbeed lagu beegsado, isbaaro loogu dhigto. waxaa isbeddel weyn lagu suubiyey guddigii doorashooyinka ee fiid. waa la kala qaybiyey, waxaa loo kala saaray 3 group.
guddigii 25 ka koobnaa isbeddelaa lagu sameeyey khilaafaa lagu suubiyey doorashaa la geliyey guddoon cusub baa loo sameeyey dad madasha ka mid ah ayaa waxay ku heshiiyeen in guddiga ay la wareegaan dadka kalena lagu dhibaateeyo guddigii 25kii xubnood ahaa yaa waxaa laga soo reebay 3 qof bas ninka muuse oo hadda waa guddoomiyaha la leeyahay oo Puntland ay keensatay nin xiis la yiraaho oo Jubbaland ay keensatay iyo nin liibaan la yiraaho oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka socda intaasaa taladii guddigii oo dhan lagu soo koobay waxaan ognahay muddo 3 bilood inay guddiga codsanayeen hal hadlo hana laga hadla arrimaha doorashooyinka iyo siday wax u socdaan iyo qaladaadka jira hal fariisto oo la diiday guddigii waxay noqotay nin allaale iyo ninkii ka hor yimaado hab dhaqanka ay dadkan rabaan in la yiraaho waa lagu bedelayaa waa lagu ceyrinayaa waa lagu xirayaa waa lagu handadayaa in la yiraahay noqotay shirkii ugu dambeeyay oo madashaan uga hadlanaynay oo looga hadlayay arrimaha soo cusboonaaday yaan kaga hadalnay anaa shakhsiyan sheegay dhibaatada guddiga lagu suubiyey iyo qaladaadka ay ka shaqaynayaan oo sameynayaan in talaabo laga qaado ayna qalad tahay in guddiga saas loo baabi'iyo lana qaybiyo waa laga hadlayaa waa la isku soo noqonayaa baa la yidhi cid dambe oo dib uga hadashay ma jirto doorashadii aan ogeyn oo dalka ka dhacday oo sida siman u dhacday oo aan tan hadda aan idiin sheegayo oo aan ahayn dadkii ugu fiicnaa oo ugu toosnaa oo heshiiska annagana uu ahaa haddii wax yar oo caqabada ama cabasho ah ay ka timaado doorashada ama state ka mida uu cabto in madasha ay u timaado la isu yimaado oo laga wada hadlo yaa waxaa la go'aamiyey oo lagu heshiiyey inaanan madalna aysan ka hadlin koonfur galbeedna la beegsado kuraas ay leedahayna la celiyo lana yiraaho ma loo joogsanayo haddii habraac la ilaalinayo haddii doorasho saxa la rabo haddii wax qaldan la qabanayo waa ognahay dalka doorashada ka dhacday waddankan joognay hal maalin yaa waxaa la soo doortay hal saac gudaheeda 16 xildhibaan yaa lagu doortay Boosaaso ninka guddoomiyaha uu joog waliba isla markaas habraaca sida jadwalka uu qornaa oo jadwalka loo soo dhajiyay maalinkaas waxay ahayd in 8 la doorto maalinta kale oo ku xigtana 8 la doorto waa haysaan taariikhda waa haysaan jadwalka meel walba yaalaa processka haddii la mari lahaa sida saxda lahaa loo mari lahaa hal mara hal saac markii la joogaa waxaa la soo dhajiyay 16 sawir la soo dhajiyay meel lagu doortayna aan la aqoonin cid dooratayna aan la aqoonin ayadoo dadkii siyaasiyiinta ahaa oo kuraastaas iska lahaa oo wasiirada ahaa oo odayaashooda dhaqanka lahaa ay qaylinayaan yaa sidii wasiirro la magacaabayo kala hal mar soo daayay ninka guddoomiyaha sheeganaya muuse Boosaasu joogay markay waxaas dhacayeen waa loo dacwooday waliba ay tahay 16 xildhibaan maanta 8 ahayd in la doortay 8 ku qornay jadwalka bari in la doorto dadkoodii waaba maqan yihiin see maanta loo doortay haata aan la weydiinin yaanan waxba laga qabanin oo hal maalin aan laga hadlin oo aan la joojinin sidaasoo kale doorashooyinkii deegaanada kale ka dhacday oo meel kasta lagu qabanayay yaa intaasoo kale ka badan iyo cillado lahaa yaanan hal maalin laga hadlin habraacoodana la joojinin aanan tilaabana laga qaadin oo la fasaxay oo la yidhi waa saxan yihiin ujeeddada waxay ku soo gabagabowday koonfur galbeed yaa keligeed isbaaro loo dhiganayo ayada oo laga leeyahay dana gaara iyo siyaasado gaara iyo ujeeddooyin gaar ahoo guracan oo uu wato xafiiska ra'iisul wasaaraha especially ra'iisul wasaaraha uu mas'uul ka yahay markii aan ka hadalnay oo aan niri maxaa sababay sababta naloo sheego guddiga fiid waa qaybsamay maxay tahay awoodiisa muxuu yahay sharciyadda uu ku celin karo kursi
habraaci noo qornaa ma yahay inuu kursi reebo kuraasta doorashada haddii dacwo ay timaado waxaa xaq u leh dacwada inay qabtaan guddiga xalinta khilaafaadka isla markaas waxaa noo qoran hadday xallin waayaan guddiga xalinta khilaafaadka waxay ku soo celinayaan madashi dacwo jirtay guddi xallin khilaafaad kuraasti laguma wareejinin oo dacwaa jirtay guddiga xalinta khilaafaadka baa tiini kuraastan qabsada lama dhihin guddiga xalintii khilaafaadkiina madashi uma soo celinin shakhsiyaad qaasoo haddaan idiin sheegayo iyo xafiiskaas yaa waxay go'aansadeen inay ayaga guddi xallin khilaafaad noqdaan inay ayaga madal noqdaan in la yidhaaho waa la celiyey kuraasti annagana aan naloo sheegin sababta lagu celiyey markaan nidhi madashi ha timaada ha laga hadlana la yidhi madal kama hadlayso oo ma la yeelaayo intaas waxaa dheer ayadoo intaasoo cabasho ay jirto oo la leeyahay lama joojinaayo yaa waxaa la leeyahay doorashaa la gelayaa waxaan qabanaynaa shahaadadii baan bixinaynaa ma dhegaysanayno soo doonta shahaadadii looma joojinaayo warkiisa kuma jirno lama maqlaayo aniga maaha ninka warkayga la diidaayo waxa la diidaayo warkiisa oo la dulminaayo oo la yasaayo waa koonfur galbeed aniga wax broblem goonihon qabo male koonfur galbeedaan madaxweyne ka ahay mana aqbalayo in dadka reer koonfur galbeed la dulmiyo wixii horey dulmiyadii hore oo jirayna nala soo xasuusiyey waxaan aqbalayno ma aha waxaan u baahannahay doorashada wadar ogol waaye in nagala qanciyo dhibaatadan annaga qaaska nagu ah iyo isbaaradaa naloo dhigtay naloo sheego waxay nagu qabatay naloo sheego waxa nagula haysto naloo sheego waxaan qaladnay inaan fahanaan rabnaa nala mariyo habraaci rasmiga ahaa oon xaqa u lahayn oon qorannay waxaan u baahannahay inaan ka hadalno sababta naloo joojiyey intaas waxaa dheer oo dhaqan ahoo la bartay dadkii soomaaliyeed iyo dadka hadda caadaystay inay reer koonfur galbeed dulmiyaan wakhtiga oo maanta 2002 la maraayo in inta message xildhibaanada loo soo diro oo social mediaha wax lagu soo qoro la yidhaaho ayagoo joogaana kooram waa dhan yahay waa la dooranayaa waa laga soconayaa waa la marayaa waxaas wax soomaalinimo ana ma aha meelay ka shaqaynaysana male dalkana waxaa ka jirta dowlad federaal ah dowladda federaalka ah ayada oo state ama qof uu maqan yahay wax dowladnimo ah iyo wax doorasho ah iyo wax dhismo ah oo socon kara ma jiraan hadday jiri lahaayeen horaan u samayn lahayn oo annagaa doorasho geli lahayn oo xildhibaano qaban lahayn markii ay isteedyada kale dacwada qabeen yaan maxay ahayd doorashada qabsan lahayn soomaaliya kala go'aysaa shalayna la dhahay annaga soomaali ma nihin miya dacwada annada lama dhegaysanayo miya annaga ma gu'i karna miya annaga dadka culays kuma hayna miya xaq uma lihin miya inaan nidhaahno waryaana la dulminin maxaa nagula dulminayaa shalay kuwii dulmiga ka baqaayey ama lahaa waa naloo joojiyey lahaa oo annaga aan ku soo baxayna ayaga maanta xaq noogumale miya inay nagu soo baxaan oo na weydiiyaan aaway sistamkii iyo nidaamkii ay ku socotay doorashada iyo heshiiskii iyo wadar olgolkii iyo isqancintii ay ku socotay maxaa sababay in koonfur galbeed keligeed jid loo istaago maxaa sababay ayadoo dana siyaasadeedoo gaara laga leeyahay ama ujeeddooyin guracan la qabo in la yidhaaho lama joogsanayo oo lasoo qoroo la yidhaaho waa la dooranayaa taariikhda waa la socotaan hadda ka hor jabuuti markii dowladda ugu horreysa la dhisaayay waxyaalaha la soo qoraayo waxay xasuusinayaanay ka mid tahay yaa markaas ma jirin koonfur galbeed federaalna ma jirin waxaa jiray inta waxaa ka jiray ururkii arare laakiin waxaa meesha lagu tegey si qabiil ah si laabla ka ahaa wax lagu dhisay waxaa bannaanka uga baxay doorashadii dadkii deegaanadan ka soo jeeday waxaa la yidhi looma joojinaayo ayada oo la rabo guddoomiye baarlamaan in loo doorto yaa waxaa la yidhi waa la dooranayaa looma joojinaayo waa la doortay dad waxaan arkaya labadan beri wixii ayagaa soo qorqoraayo war shalay jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya la ahaa laakiin maanta waa dowladda federaalka soomaaliya heshiiska la qaatayna waa nidaam federaal ah oo imbagaati lagu soo dhisay
nidaamka federaalkan wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo, wuxuu u baahan yahay wada ogolaasho. state wax diidan dowlad dhiska Soomaaliya dacwo ka qabo keligiis cid wax u suubin karta ma jirto. annaga waxaan dareensanahay wax ku talagal ah oo la diiday in nagala talageliyo, oo la diiday in laga hadlo, oo loogu talagalay naloogu talagalay annaga, oo dee markaan hadalnana naloo sheegayo waxyaalaha nagala rabo oo shuruudo iyo conditions leh oo ka mid ay tahay hebel xildhibaan ma ka dhigaysaan, waa kuu daynaynaa, kuwa kale waxaas ma bixinaysaa, kuwa kale waa kuu diidaynaa, annagaa inta kuu taagan ma yeelayna la leeyahay. waaye waxyaalaha aan diidanahay. marka maanta oo 2020kii la joogo 22dii la joogo Soomaaliyana ay marxaladan marayso, ma aqbalayno in isbaare iyo baad siyaasadeed nagula sameeyo. wax la yeeli karana ma aha. waxaa tihiin xildhibaanadii koonfur galbeed oo la soo doortay oo sharciga ahaa. maanta waxa la dulmiyey oo jidka loo taagan yahay oo sida sharci darrada lagu haysto, oo baadda loo haysto, oo isbaarada loo dhigtay, oo ra'iisul wasaaraha especially uu u dhigtay, oo uu sharuudihiisa ay yihiin hebel oo aniga gurigayga ka shaqeeya xildhibaan iiga dhig, haddii kaloon ahayn arrintaas ii sameey bas ay tahay shuruudda. annagana ma rabno nin gurigiisa nin ka shaqeeya inaan xildhibaan ka dhignee nin koonfur galbeed u shaqaynayaan rabnaa inuu xildhibaan noqdo. haddii taas ay shaqaynayso kuwii kaloo guryahaada ka shaqaynayo oo boosaaso lagaaga soo diiday baa ka dhigi lahayd. kuwii guryahaada ka shaqaynayay oo deegaankii adiga aad ka soo jeeday joogay oo gaalkacyo looga soo diiday baad yaad u rakaatayn lahayd ood u celin lahayd. gaalkacyo iyo dhuusamareeb oo adiga deegaankaadi ah kuwii adiga aad rabtay oo laga soo diiday yaad u celin lahayd ood ku qasbi lahayd. annaga marka mana qasbi kartid, mana aqbalayno wax Soomaali aysan qabin in annaga korka nagala saaro. aniga shakhsiyan 20 sano anoo jiro yaan diiday isbaaro qori wadata. isbaaro qori lagu wado yaan diiday 20 sano anoo jiro. maanta anoo 50 sano jiro oo madaxweynihii koonfur galbeed oo 2022 la maraayo wallaahi baanaan aqbalay. nin kasta oo in ka mid ahna haddii lagu sameeyana saasaan ka taaganahay. qof kasta oo adinka in ka mid ah, qof ii gooni ama ah yaan ka taaganahay. waxaan rabnaa dowladnimada Soomaaliya in la ilaaliyo, dalka in loo turo sidii aan ugu turaynay. waxaan rabnaa waddankan waa booga badan yahay, waa la soo aruuriyey, waa la isu keenay, waa la isu dulqaatay, waa la ilaalinayaa. wax magaratada habeen iyo maalin ka shaqaynayso dib u dhaca dalka, oo habeen iyo maalin ka shaqaynayso inay dakane hor leh iyo dhibaato hor leh iyo qalaqaybin hor leh dadka Soomaaliyeed ku suubiso inay joojiyaan, dib u dhacana ay ka daayaan. wax allaale wixii mas'uuliyad ka timaadana ayaga qaadaya mas'uuliyaddooda. annagana ilaahay baa marqaati ka ah. waa ogtihiin waxa aan ka soo marnay dowladnimada Soomaaliya. haddana mowqifkiiyaan ka taagannahay. ma rabno inuu hal maalin dib u dhaca uu dhaco, ma rabno in hal maalin gadaal loo noqdo, ma rabno in dowladnimada Soomaaliya ayna eersato, ma rabno in maxay ahayday aan Soomaaliya caqabad ku noqono. weliga annagana kumaana noqon, haddana ku noqon mayno. Soomaalina waa ogtahay ilaa iyo 60kii xornimada la soo qaatay ilaa iyo maanta Soomaaliya waxaan u taagnay dowladnimadeeda iyo xornimadeeda iyo wadajirkeeda iyo midnimadeeda. haddana sidiiyaan ugu taagana, laakiin waxaanan yeelaynin dulmi annaga gaar noo ah. waxay garan waayeen si ay dhiigga annaga ku bannaystaan inay hataa 2 qof nagu soo daraan. hadday rabaan inayna dilaan aqligii baa ka dhumay. si ay dhiigga annaga u bannaystaan waxay inay 2 nagu soo daraan oo midna ay ka soo qabtaan gaalkacyo, midna ay boosaaso ka soo qabtaan. waxaan ka wadaa inay 2 mid hawiye ah iyo mid daarooda nagu soo daraan yay ahayd si ay dhiigga annaga u bannaystaan. laakiin adinka keligiina idin isbaaro idin dhiganaynaa waa wax dee aqli qof bini aadan uusan ku fikirin waaye. waxa yaalana waa intaas waxaan isku hayno. adinkaa xildhibaanadii ah la soo doortay ah,
aniga shakhsiyan go-aankayga kanaa idiin sheegay waaye waxaan rabnaa inaan horey u soconno waxaan rabnaa laakiin inaan dulmiga diidno waxaan inkaga mahad celinayaa dareenkiinna iyo midnimadiinna iyo aragtidiinna fiican iyo dee saa ugu adkaysateen dulmiga joogtada ah anigoo og ninka markuu ugu yar yahay in 20 qof 50 qof ay soo wacayso oo la leeyahay maxaa u joogtaa maxaa u taagan tahay inta la bixinayaa waa la kala tegey soo gaar waa la isdooranayaa inta ku soo orod maxaa lafti gareen ku agdhigay wax gooni oo aan leeyahay mal damiirkiina idin haay maahana maana idin haay idin ma haay qofaan u yeeray min ku jiro hal qof aan wacay male damiirkiina in soo celiyay dadkan walaalihiina oo lala haray oo waliba dulmiga lagula haray darteeda u timaadeen haddii maanta aan ogaan lahayn oo naloo sheegi lahaa nagula qancin lahaa waxa lagu haysto oo saasaa loo haystaa nala dhihi lahaa hataa waa garaabi lahayn waa ka jawaabi lahayn ilaa wax xigmadoo ku jirta male waa la soo celiyo doorashada ha lagu celiyo saasaa xaq ugu yeelatay haddii nala dhihi lahaa oo nagula qancin lahaa hataa waxbay ahaan lahayd waxaan nagula haystana xaq maaha sharci maaha awoodna uma laha fiidna kuraas ma celin karo fiidna ma jiro oo waa kala qaybsamay dadkii wax la xiro iyo wax la bedelo iyo wax la handaday noqdeen waxaa yaab leh shalay beejka uu leeyahay fiidka waxaa gacanta ku haya ra-iisul wasaaraha waa beejka fiidka oo warqadaha lagu soo qoro isbi shalay waxaa u haaya wasiir ku-xigeenka warfaafinta shalay warqaddii sharci darrada ahaydee soo baxday ee war saxaafadeed lagu sheegay war saxaafadeed miyaa go-aan xildhibaanna lagu soo qoraa go-aan xildhibaanna go-aanka ciddii celisay waa inay go-aan ku soo saarto laakiin sharci maaha in war saxaafadeed go-aan xildhibaanada lagu celinaa la yidhaha xitaa sharciyaddii iyo nidaamkii ma garan karaan war saxaafadeed la soo saaro markii saas loo soo saaray yani ninka guddoomiyaha wacay wax aan ka ogahay malhuul oo ilaahay igu ogyahay waa soo manahay anaa wacay waxaan idhi warqaddaan maxay ahayd la soo saaray guddoomiye dadaan ku dhex jiraa waa ka dhex baxay isugu yidhi bannaanku u baxay wuxuu yidhi wax aan ka ogahay male qorshaha annaga wuxuu ahaa saaka kuraastaan wax sharci ahoo loo haayo male mana hayn karno inaan sii dayno waana sheegay buu yidhi saaka in la sii daayayna ahayd warqaddaanaan hadda arkay dee warqadda beejkii bay ku qoran tahay hebel iyo hebel baa soo qortay buu yidhi waxaan aniga ka ogahay male maa sheegtid oo hadashidaan idhi oo shir jaraa'id qabatid inay dhibaatada sii badataan ka baqaayaa yidhi wallaahi inaanan nabaynin waa soomanahay inay dhibaatada sii badato yaan ka baqaaya micnihii waa baqaayaa waaye marka maxaa xal ah maya waa is arkaynaa laakiin tan sharcina ma aha xal baana gaaraynaa waay ujeeddada marka waxaa la yidhaahaa libaax nin galayna og nin galladayna og waa ognahay meesha nagala haayo waa ognahay ciddan haysato weliba waa ognahay waxay noo haysata hataa ma moogin ciddan haysatana waa ognahay waxa nagula haystana waa ognahay waxa naloo haystana waa ognahay sharciyadna ma aha doorashona ma aha waxaan naqaano waayo laakiinse dee ma yeelaynaa in nala haysto ma yeelayno maantana ma yeelayno berrina ma yeelayno shalayna maana yeelin mana aqbalayno waxaan rabaa inaan inta baaqa uga diro dadka soomaaliyeed oo sida annadoo kale dulmiga neceb nabadda jecel midnimada soomaaliya ogol wadajirka soomaaliya ogol dalka inay doorasho ka dhacda rabo wanaag in la helo rabo arrintan dulmiga oo nagula haayo siyaasi waxgarad intaba inay ka dhiidhiyaan oo ay sheegaan dulmigaan nagula haayo yaan inta ka dirayaa baaqa waxaan kaloo u sheegayaa dadka reer koonfur galbeed dibadii gudaba meeshay joogaan mas-uuliyaddii aad noo dhiibteen oo aan gudannay oo la rabo in nagula dulmiyo go-aan cadaan ka qaadanay mana aqbalayno mana nala dulminaayo adinkana waxaan rabnaa si midnimo oo wada jir laho go-aanka ay xildhibaanada qaateen ah inaad u qaadataan go-aankiinnana uu kaa saaday ugu dambayntii odayaashii 77 ku ahaa ugu da-da weynaa shahaadada qaatay oo masajkii adinka la idiin soo diray loo soo diray oo wixii 20kan sano naloo sheegi jiray loo sheegay ayagoo xog ogaalka ah oo la yidhi ayagoo maqan baan guddoomiye idinka dhigaynaa guddoomiye nimankii inka dhigi lahaa guddoomiye uu walaalkaa kaa dhigin
oo dadkaada kaa dhigin noqoshadeeda waxay taraysa ma leh waxaa ilaahay igu ogyahay saddexda maanta la haysta haddaa adinka ahaan lahaydeen intaanaan idiin mari lahayn oo inkamaana tagnayn intaan yaan idiin mari lahayn waxaan kaloo idiin sheegaynaa kuwa ay haystaan iyo adinkana idinma kala jeclo oo haddii maanta kuwa laga tegay adinka ahaan lahaydeen kuwa fiyow bay ayagana dulmin lahaayeen ay ka soo tegi dhihi lahayn dadkiinna iyo deegaankiinna taladuu qaba wax ka qaba imaada wixii aad haysaan noo sheega shahaado la qaatay wax xigmaday soo kordhinaysa male shahaado la qaato shahaadadii ugu fiicnayd oo ugu sharafta badnayd oo fiid iyo siidba ay saxiixeen oo madaxweynihiinna statekiinna uu gacanta inka saaray waa haysataan mid muuse geelle uu idin siiyeyna xildhibaan laguma noqdo wax micno ay leedahay male xildhibaanna waa tahay oo shacabkaada iyo dadkaadaa ku doortay maanta cid kaa celin kartana xildhibaannimadaada ma jirto noo imaada taladiinna ku soo noqda deegaankiinna ku soo noqda dadkiinna ku soo noqda walaalihiinna iyo dadkiinna waxay qabaan wax la qaba odayaal muhiim ah la yaqaano taariikh leh dowladnimada soomaaliya iyo taariikhda koonfur galbeed qayb kule baa tihiin la inkama maarmo midnimadiinna loo baahan yahay midnimadiinna ka soo qaybgala aad iyo aada u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu